magaalada madaxda gobolka Mudug ee Gaalkacyo ayaa laga hirgeliyay leerar ku shaqeeya ilayska cadceed ah oo muddooyinkii dambe laga isticmaalay magaalooyinka weyn ee dalka Soomaaliya. leerarkan ayaa waxa ku deeqday wasaaradda arrimaha dibadda Norway waxaana fulisay dawladda hoose ee degmada Gaalkacyo oo kaashanaysa qaar kamid ah hay'adaha ka howlgala gobolka Mudug. runtii mashruuc waxa weeye aad muhiim u ah oo dawladda hoose ee Gaalkacyo oo kaashanaysa mashruuca xasilinta Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Norway ay fulisay waxaana weeye feeskii koowaad ee mashruuca waxa jiri doona wajiye kale oo la fulin doono runtii waxyaabo badan buu magaalada ku soo kordhiyay hadii ahaan lahayd dhanka bilicda iyo sidoo kale iftiiminta oo waxa arkaysaa caruurtii iyo habeenkii oo kale nalka hoostiisa kubad ku ciyaaraysa baalayaal ay ku xiran yihiin leerarkan oo ku shaqeeya keedka kulka cadceedda ayaa lagu taxay laamiga mara bartamaha magaalada iyo wadada dheer ee tooska u aada garoonka diyaaradaha Cabdullaahi Yuusuf Axmed. leerarkan ayaa shidma markay qoraxdu dhacdo waxayna sare u qaadeen amniga iyo muuqaalka habeenimo ee magaalada Gaalkacyo waxaan aad u soo dhaweeyay dadweynaha ku nool magaalada. maanta waxaanu joognaa meel wanaagsan magaaladii leerar baa lagu soo xiray jidadka hadda waa la dhisayaa saacadahana la soconayaa carwooyin waaweyn baa laga furay hadeer waxaad soo aragteen suuqa weyn oo magaalada Gaalkacyood oo hantidii banaanka taalo qof walba inta hantidiisii halka ku xirxirtay uu kaga tagay hal nin oo waardiyaa baa la jooga oo aan waliba hubaysnayn. haddaanu nahay dhalinyarada gobolka Mudug aad baan ugu faraxsanahay oo aan u bogaadinaynaa barnaamijka solar project-ga ah ee lagu soo saaciday gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo. runtii waa horumar waxay ka qayb qaadanaysaa bilicda iyo amniga magaalada Gaalkacyo. waa barnaamij runtii aad noo dhiirigeliyay haddaan nahay dhalinyarada gobolka Mudug maadaama anagu nahay dhalinyarada Gaalkacyo waan ku faraxsanahay waayo habeen iyo maalinba Gaalkacyo isku mid bay noqotay. waxa ka maqnaaba u maleynaa inay ahaayeen horumarkan waxaan rajaynayaa qof walba oo ka maqan inuu arkay ama qof kasta inuu yahay farxad inuu ku farxayo meel kasta uu joogo. aniga khaasatan ku faraxsanahay maadaama ay magaaladeena aad iyo aad u horumartay. mashruucan koobaad ee lagu iftiiminayo magaalada Gaalkacyo ayaa sidoo kale laga hirgelin doonaa laamiga Xeradaya ee taga xaafadda Garsoor iyo wadada dheer ee marta xera ciidanka Siinay ee xaafadda Israac. Said Cabdullaahi Kulmi Nadaara, Universal TV, Gaalkacyo.